Salaamu calaykum. Ka waran haddii xaaskaaga aad ogaatid inay tahayba shaydaan. Bal hadda maanta waxaan inooga sheekaynayaa qiso ka gedisan qisooyinkii hore ee aan halka kusoo gudbin jiray. Inta ka horeysase waxaan kaa codsanayaa in aad channelka subscribe saarto, gambaleelkana furato. Gambaleelku wuxuu kaa caawinayaa in uu kuu soo dhaco fiidiyoyadan channelka soo dhigno. Fiidiyogana like saar. Qasaan waxa uu ku noolaa Xasaaka, waa meel miyi ah oo ka tirsan waddankaasi Suuriya. Wuxuu yidhi, markii aan noqday wiil dhalinyaro ah, waxaan go'aan ku gaadhay inaan guursado. Markii aanu xaaskaygii dhowr sano isqabnayna, waxa ii dhashay 2 carruur ah, waa wiil iyo gabadh. Aad ayaan u faraxsanayn. Xaaskayguna waxay ahayd qof aad u wanaagsan. Waxa dhacday buu yidhi in xaaskaygii mar saddexaad uur yeelatay. 1999kii xaaskaygii markii ay saa u dhashayba waa dhimatay oo umushii ayay raacday. Waxa uu yidhi waxay noqotay carruurtii iyo aniga keliya inaan isku soo hadhno. Hooyaday ayaana ii timi oo carruurta ila haysay. Dadka oo dhami iyo hooyaday, ehelkayga, deriskayga, asxaabtayda mid waliba wuxuu igu dhiirigelin jiray inaan guursado oo carruurtayda u sameeyo hooyo. Laakiin waxaan ogaa qof booska xaaskaygii hore bedelayaa in aanay jirin. Wuxuu yidhi hooyaday sidee carruurtii ila haysay, waxaanba dhibsaday kelmadda guurso. Wuxuu yidhi 2 sano markii ka soo wareegtay geeridii xaaskayga, waxaa xanuunsatay hooyaday, waxaana la dhigay dhakhtarkii. Waxaan noqday nin u dhexeeya carruurtayda, shaqadii iyo dhakhtarka. Hooyadayna mar walba waxay igu odhan jirtay hooyo guurso. Maalinkii dambe waxaanu isbaranay gabadh dhalinyaro ah oo aad u qurux badan, deganaydna meel tuulo ah oo agtayada ah. Gabadhan nin hore ayaa ka dhintay, laakiin wax carruura ma dhalin. Yeelkeedii markii aanu cabaar wada sheekaysanay, waxay igu tiri reerkayaga i weydiiso. Reerkoodiina waan weydiistay. Aroos weyn iyo waxaa maba dhigan, maadaama aan carruur yaryarna dhalay oo hooyadood dhimatay, hooyadayna xanuunsanayso. Waxaan u soo kaxeeyey gurigii, waxaanan kala dardaarmay carruurtayda. Waxaan idhi, haddii aad carruurta wanaajisidna aniga ayaad wanaajisay, haddii aad xumaysidna aniga ayaad i xumaysay. Waxa dhacday buu yidhi in xaaskii maalmihii ugu horreeyaba noqotay xaas aad u wanaagsan. Gurigii waxaan ku dareemayaa raaxo. Carruurtaydii waa carruur fiidkii seexanaysa, maadaama aan anigu soo mari jiray dhakhtarka ee shaqayna jiray. Habeenkii xilli dambaan u imaadaa, hadday dharmaydh tahay, hadday cunno tahay, yacni wax walba waa iga kafaysay. Aad ayaanan ugu farxay. Waxa ka soo wareegtay buu yidhi 2 bilood arooskayagii. Waxa dhacday in aanan dhowr casho arag inankii ugu yaraa ee xaaskaygu ku geeriyootay markii ay dhashay. Wuxuu yidhi 2 casho ayaan weydiiyey, waxaan ku idhi inankii mee? Waxay igu jawaabtay inankii yaraa waa hurdaa, caanaan siiyey, waanan u garaabay maadaama aan xilli dambe iman jiray oo aanay carruuri soo jeedin. Waxa dhacday buu yidhi maalinkii dambe inaan dareemay yacni inankaygii anaa aad ugu xiisay. Waxaanan idhi inankayga ii soo kici. Kabacdi maba sugin, anigii ayaa kacay. Qolka carruurtaydu degan tahay waa qolka nagu xiga. Albaabkii baan furay. Waxaanan arkay in labadaydii, wiilkaygii iyo gabadhaydii waaweynaa ay hurdaan. Waxaan u soo dhaqaaqay dhinacii xoolka oo uu ku jiray inankaygii yaraa. Inankaygii yaraa baan saa uga qaaday bustaha, mise inankaygii yaraa wejigiisu wuxuu isku beddelay buluug. Indhihiisu waa kala hayaa oo ma dhaqdhaqaaqayo. Waan orday, waxaanan geeyey dhakhtarkii tuulada. In yar markii aanu joogdayba waxaa la yidhi inankaagu waa dhintay. Dhakhtarkii baan la murmay sidee buu u dhintay, laakiin dhakhtarkii wuxuu yidhi inankaagu waa dhintay. Gurigii ayaan soo noqday. Dibadda waxaa ii taagnaa xaaskaygii, inantaydii iyo inankaygii. Xaaskaygu waxay igu soo celcelinaysaa mee inankii yaraa, xaggee ayuu aaday?
waxaanan ku idhi waa kan meydkiisi waa dhintay. Xaaskaygii waxay bilowday baroor iyo oohin, waxaadba moodaa inay iyadu ilmahani ka dhintay. Aad ayay u murugootay. Wuxuu yidhi laakiin markii aan ilmihii yaraa iska soo aasnay oo wax yar la joogayba, yacni noloshaydii ayaan iska sii qabsaday. Wuxuu yidhi maalmihii dambe waxaan isbeddel ku arkay inantaydii weyneyd ee Maryam. Wuxuu yidhi waxaad moodaa inay wax ii sheegayso. Marka aanu soo wada fadhiisano si aanu wax u wada cunno way igu dhaygagsan tahay, marna waxay eegaysaa xaaskanan qabo. Wuxuu yidhi inantaydii cunadiina waa diiday. Waxa dhacday buu yidhi in aan ku idhaahdo aabe maxaa ku haya, markaan saa ula hadlana ay xaaskayga soo boodoo tiraahdo weli walaalkeedii yaraaye Yuusuf ayay inantani ka murugaysan tahay. Ismana sii raacin. Waxa ka soo wareegtay misna 3 bilood. 3dii bilood waxaan imanayay guriga isla sidii xilli dambe. Waxaana dhacday in aan arki waayo inankaygii Lu'ay. Dhowr casho ayaan ku idhi inankii mee, inankii waa hurdaa, inankii maxay ahayd waa xanuunsanayaa. Waan soo eegaa inankii yaraa yacni xanuun waa ka muuqdaa laakiin waxba ii sheegi maayo. Waxa dhacday buu yidhi in maalinkii dambe xilli ay ahayd cishe aan imi gurigii. Waxaanan u imi xaaskaygii oo ciid ugu shubaysa madaxa, qaylinaysana inantaydii Maryam. Markii aan soo ordo ka qabto idhi maxaa dhacayna, waxay dhaheen maanta casarkii markii aanu isnidhi salaata casar u kiciyo Lu'ay wuu kici waayey, waxaadna moodaa inuu dhintay. Aad ayaan u naxay. Waxaanan ku orday dhinacii qolka. Inankaygii wuxuu jiifaa meel sariira, dhaqdhaqaaqina maayo. Isla sidii si leeg waxaan ula orday dhakhtarka. Waxa uuna dhakhtarkii ii sheegay in inankani dhintay. Aad ayaan u murugooday. Waa inankaygii labaad. Cid kale ima hadhin aan hal gabadh ahayn, laakiin yaa dee wax ka qaban karaya. Inankii baa la iska soo aasay. Wuxuu yidhi noloshii waa nacay maxay taqasaan. Inantaydii Maryam xitaa waa ilaaway. Waxa ka soo wareegtay ayaamo. Aad ayaan u murugooday. Cidna waa la hadli waayey, xitaa xaaskaygii waan isku beddelay. Waxa dhacday buu yidhi in maalinkii dambe anigoo aad u murugaysan aan imi guriga hortiisa. Waanan fadhiistay anigoo yacni niyeysanaya carruurtaydu siday igu hareer ciyaari jirtay iyo farxaddii aan ku noolayn iyo masiibada aniga igu habsatay. Wuxuu yidhi anigoo iska fekeraya ayaa waxaan maqlay oohinta inantaydii Maryam. Maryam waxay leedahay eedo iga daa, habar yar iga daa. Wuxuu yidhi inantii yari waa isku yacni magacyadii xitaa waa isku khaldaysaa. Aad bayna u qaylinaysaa, u ooyeysaa. Waxa uu yidhi waxaan furay albaabkii yar. Waxaanan galay qolkii Maryam. Maryam waxa ay ku xidhxidhnayd marawaxadda. Waxa ayna ku shubaysay biyo qabow iyadoo dharkii oo dhanna ka dhigtay. Wuxuu yidhi meel aan joogo intaan garan waayey ayaan waxaan soo qaatay sixni dhoobo ah. Waxaanan kaga dhuftay madaxa waanay dhacday. Wuxuu yidhi inantaydii ayaan waxaan geeyay dhinacii dhakhtarka. Inantaydii waa shoogsan tahay, hadli mayso. Waxaan ku idhi aabe ha baqin, ii sheeg maxaa dhacay. Waxay tiri aabe walaalkaygii yaraa maalmihii ugu horreysay ay xaaskani timi waxay bilowday in ay saliid ugu darto, saliidda cunnada ka hadhay caanaha ayna khasab ku siiso. Waxayna noola soo bixi jirtay mindi aniga iyo walaalkay Lu'ay odhanna jirtay haddii aad sheegtaan waa idin gowracayaa. Ilmihii yaraa markuu sidaa ku dhintay, maalinkii dambe waxa dhacday in ay soo qabatay aniga iyo Lu'ay lagana xidhxidhay gacmaha iyo lugaha. Wuxuu yidhi waxay tiri aad baan u ooynay. Waxa ayna bilowday inay soo qaadato irbad. Irbadii ayaa iyo dhagax waxa ay madaxa kaga garaacday walaalkay Lu'ay. Uu ooyayay uuna qaylinayay, laakiin markii ay irbadii madaxiisii ku libidhay ayuu joojiyey
qayladii iyo dhaqdhaqaaqii sida ayuuna ku dhintay. Aabihii wuxuu qaaday inantii waxa uuna geeyey booliskii tuulada ka dhisnaa. Markii ay sidaa ugu sheegtay, booliskii waxay yidhaahdeen adigu halka fadhiiso. Waxa ayna aadeen gurigii waxay ugu tageen haweenaydii oo taalla qolkii gabadha. Waa la rogrogay waxaana la ogaaday inay geeriyootay. Aabihii ayaa lagu soo noqday waxaana loo sheegay inay xaaskiisu geeriyootay. Aad ayuu u ooyey una cadhooday wuxuuna yidhi ma doonayn in ay sidaa hawsha yar ku dhimato. Markii la arkay inay xaaskii dhimatay, ninkii waa la xidhay waxaana la galay baadhitaan. Carruurtii waxa la ogaaday in madaxii wiilku ay ku jirtay irbaddu sida inanta yari sheegtay. Waxa kale oo la baadhay inankii yaraa ee ka horreeyey waxaana la ogaaday inuu u dhintay cunno xumo ama cunno sumaysan oo la siiyey. Sidaa la ajligeed waxaa lagu xukumay 5 sano iyadoo markii dambe la sheegay in uu ninkani doonayay inuu badbaadiyo xaaskiisa. Wax yar ka bacdiina waa la iska soo daayay. Waan rajaynayaa inaad ka heshay qisada maanta. Channelka subscribe saar, gambaleelka furo, fiidiyoyadana like saar. Waad mahadsantihiin.